lagu saleeyayo horumariyo cadaaladii kamaba horeynine calankaan harsanaynayo moodanihiyo hambalyo kugu salaanaye astaan wadana noo noqo wanugu hawaynaho naftan ku hurayna habeniyo dharaarba cadowka hirayna hareertaada joogna آياتها القرآن كها وحنا كسر دويتنا شيخ نوفري. بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. بس هو حاليا هرنا عقود قدونا إن ولا لها قبر بيحسدها يكون بالله إيه أوركن أمبيش كيسة إيه هدفك أوركن وأورد اليرو أو كم ضح بنان ترابليسم قبيلة وحليلاه إيه أم political activity إيه وحليلا سياسة وكم ضح بنايه وأورك أساس ماي داليرة كسوة كذا قبر بيح أمبيش كيسنوية هاي لما سومالي ريجنال ستيت أما الدولة دعوان كونتو كوكومية هاي إنه جارو وحقبت كيسو سيدا educational supportation سيدا هذا واحد كتابنا educational supportation supply water supply إيو لما ملاها كشرتو دبتوي كسر drought كفامين لما وحيابها صودن إن وكأويو لما ومدة كسوة كذا سومالي ريجنال ستيت وياي waxaan halkan mar labaad ka salaamayaa dhammaan ururka dhalinyarada KB Brothers oo ay ka go'an tahay inay banaan ka noqdaan haday noqoto qabiil ama siyaasad marka waxaan halkan u sheegayaa dadkan ka soo qayb galay inaan nahay dhalinyar ku midowday walaaltinimo ay rabaana inay wax hal mar wada qabsadaan marka sida waxaan dadkan u sheegayaa inaan anagu nahay dad hal meel ka wada yimid hal meel wax ku soo wada bartay dadkii ay ka yimaadeen iyo dadkii kaleba inay wax u qabtaan dhammaan dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya marka waxaan rajaynayaa hadafkanagu wuxuu yahay inaan wax ka qabano dhammaan iskuulada wadanka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya sida caafimaadka oo kale dhinaca isboortiga inaan ku dhiirigelino dhalinyarta muqaadaraadka iyo waxa aan barato inaan ku soo jeedino isboortiga marka waxaan aad iyo aad halkan uga salaamayaa dhammaan shacabweynaha ka soo qayb galay waxa hadalkeena ku dhan yahay intaas baadsan yahay waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha ururka KB Brothers Mudane Cabdiwahaab Sacab lagu soo dhaweeyo ورحمة الله وبركاته مركب روحان ما قال يوسف شيدني أما تشرفت رجل دمر سكوت شرت حفلة قال يا كسوق بشعاوة تاسون عاوة نقول ده فرنو
ururka dhalinyarada KB Brothers sidoo kale waxaa u mahadnaqayaa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida iyo xukuumadda hogaaminayo sidoo kale waxaa aad iyo aad sharaf qaaliya naga mudan dadka safarka noo soo maray Minneapolis iyo St. Clair asxaabaha qaaliga sidoo kale oo hogaaminayo mudane Sultaan Maxamed Bade iyo martida kale ururka dhalinyarada sidoo aad ma siihiin Roble gudoomiyaha xisbiga mudane Ibrahim I'm sorry microphone is ku ficnin laakiin waa ku qasbanahay marka ururkan hadda aasaaskiisii ugu horeeyay waxaa la aasaasay last year bishii August taas oo maanta bisheedii ay koobsaday iyadoo oo micnihii hadafkii iyo ujeedadii ay ahaayeen inaan qabiil iyo siyaasad ka madax bannaanano aanan qorshayaasha noo go'an ay ahaanayaan kuwa hore nooga soconaya noona sii hirgelin doona taas oo tahay oo afhayeenku hadda idiin soo dhameeyey waxaan intaa kaga baxayaa aad iyo aad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore intaana bilaabin khudbadayda waxaan halkan mataqaanaa hambalyo u soo jeedinayaa dadweynaha quruxda badan ee aad mataqaanaa isku soo muxuu ahaa abaabulay ee ka soo qayb galay xafladii ugu horeysay ee ay noo qabtaan walaalaha qabr bayax oo in badan sugaynay waxaan halkan aad iyo aad ugu mahad celinayaa sidoo kale qabanqaabayaasha soo qabanqaabiya xafladan quruxda badan ee mataqaanaa muxuu intaas oo dad ku casuuntay in maanta u dabaaldegaan xafladda walaalaha qarbayax iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantiin intaas haddaan salaan kaga gudbo mudanayaal iyo marwooyin horta marka hore waxaan rabaa mataqaanaa inaan siiyo mataqaanaa muxuu ahaa hambalyo inaan idhaahdo ururkan dhalinyarta ah ee mataqaanaa iyaga oo mataqaanaa weli waddanka muddo yar oo gaaban jooga isku xilqaamay inay mataqaanaa gacmaha isqabsadaan una noqdaan hormuud shacabweynaha ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhalinyarta yar waxay yihiin waa dhalinyar ku dayasho mudan runtii marka laga hadlo waxa weeye qabiil way ka tageen waxa weeye deegaan way ka tageen dadkana waxa weeye waa dad ku bahoobay wada dhalasho deegaan iyo mataqaanaa walaaltinimo Soomaalinimo Itoobiyaanimo waa dhalinyar ku bahoobay intaas waxaan leeyahay waa dhalinyar ku dayasho mudan dhammaanteen waxay naga mudan yihiin in hal mar dalma ay igu sacbisaan runtii marka la yiraahdo qabr bayax sida magaca ku qawaran mataqaanaa muxuu ahaa qabr bayax brothers waxay ka yimaadeen waa shacabweynaha ka yimid degmada qarbayax ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed idinkana waxay leeyahay waa ku mahadinayaa sida sharafta iyo qadarinta iyo wadanimada ku jirto ee always ugu taagan tihiin maxaa horumarka iyo mataqaanaa muxuu ahaa nabadgelyada dowladeena iyo deegaankeena aad bay idinka ku mahadinayaa inta hadaan ka gudbo waxaan jecelahay mataqaanaa in mataqaanaa muxuu ahaa walaalaha qabr bayax ama muxuu ahaa qabr bayax brothers ay mataqaanaa ku daraan activigooda sida mataqaanaa ku eg mataqaanaa muxuu ahaa bayaankooda inay ku dadaalaan sidii mataqaanaa mujtamaca ka soo jeeda dowlad deegaanka oo dhan mataqaanaa ay horumarka uga shaqayn lahaayeen siyaasadna uga maxduulaan lahaayeen waxaan kaloo jeclaan lahaa maadaama maanta la xil saaray inaan furo xafladan nimanka walaalada ee mataqaanaa iga dambeeya ee hadli doona waxaan rajaynayaa mataqaanaa in maanta uu madashan joogno madashii xogaa waan xabeebsanahay waxaan rabay inaan uga mahad celiyo dadweynaha dhammaan dhallinyarada martiqaadkooda aqbalay ee ka soo qayb galay intaa ka bacdi waxaan indhahayga hortooda aad ugu faraxsanahay dhallinyaradan gabadh iyo wiil siman ee qabri bayax oon filaayo degmooyinka kale ee dowlad deegaanka ee kale inaynan maanta intanoo siman inaynan lahayn oo aynigaas kama muuqdo duqayti hortayda waxaa ka muuqda dad dhallinyaraha oo gabdho iyo wiilalaba haddaan hadda dhaho muxuu ahay qabdaharre iyo fiiq iyo meesha la dhagax buur oo kale dhallinyaro siban u siman ma laha taasoo caddaynaysa nabaddu macaanka iyo wanaaggay leedahay saa darteed degmooyinka kale ee idinku tiirsan ee walaaladiina dhallinyaro saa isula kacday ma ay haystaan taasu waa wanaagga
ay leedahay nabaddu dhallinyaradan brothers qabri bayax brothers iyo kuwo kaloo fara badan oo meeshan laga sheegay intuba qarnigan aynu hadda joogno afku maqhraati ma galo waxaa maqhraati gala ficilka qofkaa maqhraati gala hadal wanaagsan oo meel laga yidhaahdo oo dhallinyaro ah oo fara badan oo duqaytiya oo wacdiya intoo weyna soo maray luuqaddaa wanaagsan ee lagu hadlo muhiimaddeedu waa qofka ficilku qaado ficilkaad qaadaan baa idin hor yaalla ficilkaad qaadaan hadduu wanaagsanaado oo mid dadka wax u tara noqdo taageero badan baad helaysaan waayo idinkaaba dadka jiidan laakiin hadduu iskara marsanaado afkiinna ficilkiinna iyo iskara marsanaado luuqaddiinna waad mahadsantihiin taageeraan u nahay qabri bayax brothers waxaa kaloo idiin sheegaynaa maanasoodho jaaliyad ballaadhan oo dowlad deegaanka yaa ka jirta ururo fara badan bay leedahay oo kala gedisan haween leh duqayti leh dhallinyaro kala gedisan leh intuba dalladii u dhaxaysay ee jaaliyadda ka koobnaydna waa la samayn doonaa ururka dhallinyarada ee KB Brothers waxaanu leenahay waa urur aanu rabno inaan si kalgacala ku soo dhaweyno waa urur aan maaragtay waxqabadkiisa siduu ku bilowday iyo wixii hore uu soo qaban jiray intaba ay wax muuqato tahay aad iyo aadna aan u soo dhaweynayno waxaanu leenahay ururkani waa urur u baahan in la garab istaago soo dhaweyn mudan waa urur ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan degmada qabri bayax waxay isugu jiraan dhammaan shacab weynaha ku nool degmadaas meeshay doonayaan ka kala yimaadaan ma aha urur ku dhisan qabiil waa urur ku dhisan walaalnimo isjacayl iyo kalgacal kaasoo ku salaysan deegaanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sidaa daraaddeed waxaanu leenahay soo dhowaada boqolkiiba boqol aad iyo aad ayaan idiin garab taagannahay haddii aanu nahay jaaliyadda guud ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ku nool gobolka Minnesota iyo waqooyiga Ameerikaba qabri bayax waxaa lagu yaqaanaa inay tahay horseedkii nabadda inay tahay waxqabadkii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waa urur waa shacab ka soo jeeda midnimada iyo walaalnimada iyo soo dhaweynta iyo horumarka deegaankaas sidaa darteed waxaanu leenahay shacab weynaha ururka iyo dhammaan dadkuba inay garab istaagaan ururkan aan caawa u dahfurayno ee dhallinyarta ah jaaliyadda dhanna waxaan ugu baaqaynaa inay soo dhaweeyaan si kalgacala waana urur aan rabno inaan waxqabadkooda aan aqoonsanno garab istaagno iyaguna wixii laga rabay inay qaban doonaan ayaan ka rajaynaynaa ururkani waa urur tixgelin doona ururadii hore ee sii jiray iyo kuwa samaysmi doonaba caawa waxaan arkaynaa inay sadyabaan ay garab taagan tahay KB Brothers waxaa kale oo iyaguna garab taagan ururkii hore ee la odhan jiray sadyo iyaguna waa urur ay aqoonsan yihiin oo ay soo dhaweynayaan jaaliyadda garab taagan qaybaha bulshada ee kala duwan ee munaasabadan caawa isugu yimid waxaan si kaliya laaba u salaamayaa ururka dhallinyarada ee caawa dahfurkiisa aan halkan isugu nimid ee KB Brothers waxaana leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada aniga oo matalaya ururka DDSI Youth and Students Empowerment oo ah hay'ad samafal ah oo noo aasaasnay sanadkan hadda bishii March kadib markii aan anigu dhulka hooyo tagay ka soo laabtay hay'adan waxay ka dhisan tahay Mareykanka so far Canada wadanka Qatar
Australia Europe iyo waddanka gudihiisa oo isagana ka soo sharciyeynay bulshadu waxay ka dhisan tahay waa dhalinyaro carabtu waxay ku maamaadaa kullu zaman laha rijaal macnaheedu waxa weeye zaman kasta ama qarni kasta oo lagu jiro wuxuu leeyahay dadkaasina waa marba dhalinyarada waqtigaas joogta ee waddanka iyo ummadda intaba matasha qofka bini'aadanka ah ee dhalinyarta ah waxa ugu fiican ee ah inuu ku fikiro waxa weeyaan inuu ku fikiro sida dhalinyaradan KB Brothers inuu dadkiisa wax u qabto qofku markaas uu ogaanayaa waajibaadka uu waddankiisa ku leeyahay waddankan waxa la dhahaa waa the land of opportunity waa waddankii opportunity-ga weeyaan marka opportunity-gan inagu helay waa inaan ku fikiraa inaynu waddankeennii aynu ku xoojinno dhallinyaradii wax ka baranaysay aynu ku xoojinno isbitaalladii aynu ku xoojinno maaragtay bulshadii inaga hadhay fursaddii maantaan haysanaa maanta inaan ka faa'iidaysanana waa loo baahan yahay dhallinyaradan waxaan kula dardaarmayaa ummad walba markay wax bilaabayso aad bay u jeceshahay laakiin hadhow waxaa soo bixi doonta dadku inay iska caajisaan waxaan ka codsan lahaa inayna ka caajisin fikraddan quruxda badan ee ay bilaabeen waxaan ka codsanaynaa annaga hadda waxaan bilaabaynaa hadduu la yidhaahdo bisha November hooyo aabbo wada qurux badan oo meel ka wada halgamaya weli ma arag caawo ka hor aad baan idii ammaanaya idnimada dhallinyarada waxaan u tirinayaa ilaahow daayin diinkaaga ku xijaab ilaahow daayin askartaada ku difaac ilaahow guulla galladaada ugu baaq waa u duceeyey idnimo yaryar oo wada wadaniya oo aad isku wada meel ka wada halgamaya waxa kale oo hambalyo iyo tahniyad kalgacal ah aan u tirinayaa anigoo ku hadlaya afka hooyooyinka Soomaaliyeed kuna faraxsan hooyooyinka Soomaaliyeed ee qabri bayax aan uga hambalyaynayo anigoo ku hadlaya afka ururka hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo waxaan u dirayaa anigu tahniyad gaar ah madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliyeed mudane Cabdi Cumar ayaan tahniyad gaar u dirayaa cabdi oo guulayso waligaa gadaal ha marin oo guul ka soo qaada goobtii kastoo tagtaba oo geyigoo idile adig gaadha kaa hayaan gargaara Soomaalida u geesigii dalkow adaan goortii walba guulla kuu baryaa cirsanka yeerkow Allah caafimaad ku sii dhammaan marti sharaftan iyo dadweynahan sharafta badan ee munaasabadan KB Brothers ururka dhalinyarada KB Brothers daafurkoodii ugu horeeyay ee ka soo qayb galay run ahaantii aad baad u mahadsantihiin waxaa kaloo u mahad celinayaa mar labaad ururkan dhalinyarada KB Brothers ee hadda hal sano jirsaday run ahaantii waan soo dhawaynaynaa aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa waxaan aaminsanahay haddaan nahay jahliyadda ama ururka dhalinyarada Sadio anigoo ku hadlaya afhayeenka ururka dhalinyarada Sadio KB Brothers in ay yihiin hay'ad iyo urur dhalinyaro oo nagu soo biiray oo garab maaragtay na siin doona insha Allah ama aan isa siin doono runtii aad baan ugu faraxsanahay aadna waan u soo dhawaynaynaa gacmo furanna waan ku soo dhawaynaynaa KB Brothers iyo waliba walaalaha qabri bayax maadaama ay degmada qabri bayax ka soo jeedaan runtii waa wax lagu farxo waa wax ilaahay maaragtay lagu shukriyo runtii waxaan mar labaad u mahad celinayaa maamulka KB Brothers nagu sharfay ama nagu marti qaaday in aan kala soo qayb galno xafladan quruxda badan ee ay ka soo qayb galeen dhammaan dadweynahan gabdhaha iyo odayaasha iyo wiilashaba leh KB Brothers aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin gudoomiyaha KB Brothers aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa
sidoo kale afhayeenka KB Brothers aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa runtii waa loo baahan yahay in aynu deegaankeenna iyo waddankeenna aynu Solamia Cabribia Brothers Maga ega wa Katie iyo wanka humahai wahan kahadla an Somaliyar. But I am learning. I will speak now in English to best say what I mean. I would like to first to thank Mahad for inviting me here tonight, Mahasanid. And yes. And I would like to say that I'm very honored to speak here tonight with all of you here. For your time, Mahasanid, iyo barisho wanaagsan. Markaad aragto dad dhalinyaro ah oo sidan oo kale isugu yimaaday oo arrin lagu farxo sameeya waxay dib kugu noqonaysaa inaad ku yara wareerto qaabkaad u wajihi lahayd sababta dhalinyaro badan ayaa dhalinyaradeennan ka horeysay arrintan oo kalena meena la imaanin taa waxay tusaysaa bulsho xoog leh oo waxtar leh inay nagu soo kordhay taa marka alxamdulillah baan u taleenahay meel kasta oo tagtana bulsho kasta markay burburayso dhalinyarada ay ka burburtaa bulshada kor u soo kacaysana dhalinyarada ay ka soo kacda marka dhalinyaro xoogan oo waxtar leh ayaan helnay marka inaan ka faa'iideysano energy-ga iyo awoodda iyo fikradda ay leeyihiin ayaan u baahannahay meelaha ay ka yimaadeen qabri baaya horta ha noolaato isbedel qiimo leh insha Allah ayaan ku arki doonaa magaaladan gabdhihii khaasatan aad bay u dadaalayaan dhalinyarada ragga kaliya ma aha inkasta oo dhaqdhaqaaqan aynan ku arkin laakiin waxtarkooda inta badan waa iyaga ninka oona gabadh ka dambaynin waxa uma qabsan karo behind every successful man there is a woman marka aad ayadu mahadsantihiin dhaqdhaqaaqeenana sidan ha ka sii bato insha Allah wixii waxtara ee loo baahan yahay diyaar baan u nahay inkastoo qabanqaabadii hoose aanan ka mid ahayn taageer Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku salaamayaa halkan marti sharafka ka soo qayb gashay shirka dhalinyarada ee ururada walaalaha isbahaystay nooc kasta yihiinba dhammaan waxaan leeyahay soo dhawaada ururka KBR qabri bayax KBA Brothers qabri bayax ha ku soo dhawaadaan wiilka baan leenahay annagu haddii aan nahay dadweynaha hooyooyinka odayaasha abayaasha waan idin garab taaganahay maadaama ood qabyaalad iyo qurun ka madax bannaan tihiin ood iskiin soo urursateen wiilkan baan idin leenahay soo dhawaynaynaa dhammaantiin wiilkan qabri bayax ku soo dhawaada assalaamu calaykum una hambalyeynaya ururka dhalinyarada KB Brothers waxaan aad iyo aad u wada ogsoonnahay inay tani noqon doonto waxbarasho oo dhalinyaro badan oo dhammaan ay ku waxbaran doonto midnimada iyo isjacaylka walaaltinimada aan ku salaysnayn wax ama qabiil ku salaysan ama nidaam kale ku salaysan aad baan u faraxsanahay waxaan arkay weji cusub oo ururka dhammaan dhalinyarada Soomaalida Itoobiya tusaale cad u ah waxaan soo dhameynayaa dhammaan dhalinyarada qiimaha iyo sharafta badan ee rag iyo dumarba leh ee midnimada walaaltinimada iyo horumarka ku tallaabsaday halkan waxaa fadhida dhalinyarta FC Bayax oo aad dadaal weyn ugu xoogan inay kubadda cagta sii xoojiyaan halkan waxaa gabay ka soo jeedinaya Cabdisalaam Bashiir fadlan saxba lagu soo dhaweeyo fadlan Cabdisalaam Bashiir waa in aad u daayar waa in kubadda cagta ka ciyaar Singaloor FC Bayax dhalinyartan waxay aad ugu hanweeyeen inay wax walba ka qayb qaataan fadlan la soo dhaweeyo saxba lagu soo dhaweeyo fadlan saxba lagu soo dhaweeyo
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdisalaam Bashiir Maxamed halkan waxaan ka soo jeedinayaa gabay ku saabsan ururka KB Brothers waxaan ku bilaabayaa sidan KB Brothers waa urur walaala ah wanaag isku keeno u midoobay iskood ujeedkoodu wuxuu yahay aan idin iftiinshon wax idin ka sheegay aasaaska nabadiyo ololaha bulshada oo horumar lagu abaabulo dhinaca ixsaankana Soomaali idilkeed hadba kii taal daran intii ay ka gaadhaan kolba garab istaago u adeego waligood ehelkana dhammaantii aabba iyo hooyiyo abti iyo adeer iyo ayay iyo walaal iyo inta kale xigaalaba eedaabta hadalkiyo anshaxbay muujaan qayrkood ma liidaan uma kala abtiriyaan eed iyo dhibaatiyo xumo kuma abuuraan astaantoodu waa nabad ma yaqaanaan eexdo aafada qabiilkiyo urxuntay la diriraan adduunyadan qariibka ah amuurahan iswada galay allahayowna samata bixi ururkaa istaagayna kuwii is-aamina abidkood aan kala hadhin ummadooda deeqee diintooda anfaca allahayow ka wadayaal aamiin dhammaan waalidka dhallinyarada qarbayax oo dhan ayaa horta abaalmarin iska leh ta kale markaa gaar ahaan hadda waxaan rabaa inaan meesha waxa yaala 2 koob oo inaan kala siiyo aasaasihii ururkan maanta aynu furno daahfurkiisa quruxda badan ee maanta ina qarciyey ayaan rabnaa inaan mataqaanaa siino hooyadii oo ka mas'uul noqonaysa wiilka ayaan rabaa inaan u yeero halkan hooyo barwaaqo inaan u yeero hooyo barwaaqay soo dhawow hooyo barwaaqo waxaan ku leeyahay aniga ku hadlaya magaca mujtamacan intan leega halkan soo istaagay waxaan aad iyo aad kaaga mahadinayaa fikirka wanaagsan ee quruxda badan ee mataqaanaad ku aawisay wiilkaaga wadaniyada ku jirto ee mataqaan ku jirto wada dhalashadu aad baan kaaga mahadinayaa hooyo waxaan kale halkan mataqaanaa haddana aan rabo inaan ku soo dhaweeyo hooyo ka mida hooyooyinkii dhallinyarada quruxda badan ay arkaysaan mataqaanaa waxqabadkaas sameeyey ka mida hooyo ka mida oo ah guddoomiye ku-xigeenka hooyadii hooyo Xaliimo Cali ayaan rabaa inay soo dhawaato hooyo Xaliimo waxaan ku leeyahay anigoo ku hadlaya mujtamaca deegaanka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo saa mataqaanaa caawa ku faraxsan wanaaga iyo mataqaanaa mujtamaca ku korisay wiilkaaga yar ee ku jirta wadannimada iyo mataqaanaa muxuu isqadarinta iyo wada dhalashadu intaa ka bacdi waxaan leeyahay waalidiinta intiina kale imidaan iloomin laakiin waxaan leeyahay qayb baad ka tihiin aad iyo aad baad umahadsan tihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u soo istaagay hadda inaan guddoonsiiyo shahaado sharaf macnaha KB Brothers way ka weyn wax macnaha la yiraahdo waad mahadsantiin oo kaliya ama xafladan uga soo qayb galno waxay naga mudan yihiin wax qiimo leh oo ay mustaqbalka ku faanaan nagu soo xasuustaan inaan siino maadaama ay yihiin jiil cusub oo dhigay record cusub oo aan hore loo samaynin oo dhalinyaro Soomaaliyeed aan lagu arag inay isku raacaan dadku waxay isku raacaan degmooyin iyo meelaha ay ka soo jeedaan iyo waxyaabo kale laakiin iyagoo ummadda deegaanka oo dhan metelaya ayay isku raaceen inay noqdaan niman hal meel ka soo wada jeeda oo xasuusta meesha ka yimaadeen waxa igu dhaliyay inaan macnaha aan wax guddoonsiiyo dhowr su'aalood baan weydiiyay dhalinyarada waxa ka mid ahayd haddii lacalla aan wax idin guddoonsiiyo yaad macnaha idin qaadi lahaa abaalmarinta dhammaantood waxay isku raaceen annagu ma lihin abaalmarinta ee waalidkiina soo ababiyey ee arrinta naga ogolaaday ayaa iska leh midda labaad ee macnaha igu dhalisay inaan abaalmarin guddoonsiiyo waxa weeyaan dhalinyarada Mareykanka joogta waxay isugu faanaan telefoonkaad haysatiin noocee weeyaan surwaalkaad gashan tahay noocee weeyaan laakiin KB Brothers waxay macnaha istusaan
hebelow balitus guriga aad dhistay ee qabri bayax ku yaalla siduu u eg yahay meeqo qol weeyaan macnaha meeqa account kuugu jirta waxyaabaha horumarka ee macnaha lagu faano ayay macnaha iyagu ay istusaan oo ay telefoonadooda ka soo saaraan midda aan ka sheekeynaya maaha mid macnaha iska dhahaya 2013kii aniga ayaa qabri bayax tegey inta guri ee qabyada macnaha waanan tirin kari weynay inta dhisan macnaha wiilkii sanad joogay iyo kii laba joogay indhahaygaan aanu ku soo arkay hebel baa dhisay KB Brothers bay wada ahaayeen arrintaana macnaha way igu dhalisay inaan macnaha siiyo abaalmarinta anigoo tixgelinaya codsigoodii waxaan meesha goobta uga yeedhayaa qof mas-uula oo ay doorteen hogaamiye horena soo ahaa bulshada qabri bayax iyo dadka dowlad deegaanka ka soo wada jeeda ay wada yaqaanaan oo aynu ku naqaano hogaaminta iyo taageerista macnaha waxyaabaha fiican waxaan halkan uga yeedhayaa marwo guddoon cabdi yuusuf inay ku soo dhawaato oo aan macnaha guddoonsiiyo